caasimadda koonfur galbeed magaalada Baraawe ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay maxkamadeynta eedeysanayaal ay tiradoodu gaaraysay ilaa iyo 10 ruux kuwaas oo loo haystay iibinta dhul sharci darro ah ka wakiil ahaanshiyaha iyo sheegashada dhul aysan lahayn. Goobta maxkamadeynta shakhsiyaadkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ururada bulshada rayidka, maamulka degmada iyo mas'uuliyiinta sare ee maxkamadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. eedeysanayaasha ayaa maxkamaddu 7 ka mid ah ku xukuntay min 2 sano oo xabsi ah, halka 3 ka mid ah oo maqana ahaa lagu xukumay min 5 sano oo xarig ah. Dhinaca kale, maxkamadda ayaa xilka qaadis ku samaysay gudoomiyaha maxkamadda degmada Baraawe, Maxamed Cabduqaadir Iidow, si ku meel gaar ah waxaana loo magacaabay gudoomiye cusub Sheekuna Abu. waan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan u gudbo xilkayga daacadda oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba, dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale, maxkamadda ayaa shaqo joojin si ku meel gaar ah ugu samaysay xogayaha dowladda hoose ee degmada Baraawe ilaa amar dambe. Gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada Baraawe ee xilka qaadista lagu sameeyay iyo gudoomiyaha cusub ee maanta loo dhaariyay sii haynta maxkamadda ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay. in shaqada aan ku jiray aan ka tabanayo wixii dhib ay geystay ama igala hadashayna xaggii waxay ka tahay cafis. shacabkana waxaan rabaa inay is gaarsiiyaan in la iscafiyo. haddana waxaa noo yimid gudoomiye ku meel gaar loo magacaabay. waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo dhammaanteena garab istaagno dadweynaha iyo madaxda sharafta iyo maxkamaddaba. waxaan leeyahay runtii marka anigu doorashadan oo ay ii doorteen ama maxkamadda ama dadkiba, marka insha Allah waan ka faraxsanahay, waana la shaqeynaa insha Allah si cadaalad, maadaama aan ku dhaartay kutub Ilaahay sida aan ku dhaartay inaan dadaalo aan ku shaqeeyo ballan ayaan qaaday haddii Ilaahay yiraahdo. Gabagabadii waxaa fadhiga maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Axmed Cali Muuse. waxa uu fariin adag u diray dadka qurba joogta ah iyo kuwa daneynaya in ay dhul ka iibsadaan gudaha degmada Baraawe, isagoo sheegay in hantidooda ay ku bixinayaan meel aysan hubin. Dhinaca kale, maamulka iyo bulshada ayuu kula dardaarmay in ay waajib ka saaran tahay ilaalinta hantida danta guud. waxay u baahan tahay marka dadka kale oo daneynaya inay dhul ka qaataan Baraawe oo in dadka deegaanka ka tirsan inay la xiriiraan ay been u sheegaan uraysan lahayn inay ku tilmaamaan inay leeyihiin si dadkaas wax loogu qaato xoolo loogu qaato oo kaliya. wax fiican ma ahan, wax dhaqan soo jireenna ma ahan. dadka qurba joogtana inaysan lacagahooda hantidooda ku bixinin waxaysan hubin. dhul hadday u baahan yihiin waddada loo soo maro ha loo soo maro. dhulka sharciyadu leeyahay waxa anaga sameeyna ma ahan, waxa idinka samaysayna ma ahan. waa wax sharci dawladda iska leedahay loo maraa. qof shakhsi anaga naga tirsan dhul ma bixi karo, qofna kama qaadi karo. dhul dan guud hadday tahay dan guudaa loogu talagalay. hadday dan guud tahay ay u astaysan tahay ee u dhisan tahay, hadday ka maaranto hay-addaas waxay xaq u leedahay inay warqad qorto, ay u qorto dadkii ka saraysa iyo yiraahdaha hantidaas waa ka maarannay. laakiin in dhul dan guud la og yahay oo istaraatiiji ah oo xeebta dhinaceeda ah inay dad muwaadiniina sheegtaan lahaanshihiisa. qof waxaa arkaysaa sheeganaya 500 oo boos hal qof ah. 500 oo boos qof muwaadina see ku geli kartaa? sharciyadda uu ku lahaa kar maxay tahay in wax la isweydiiyaa fiican. qofka laftirkiisa wax gadanayo oo dhul danaynayo markuu yiraahdo qof 50 boos ama 500 boos aan leeyahay sidoo ku aamina. dabeecadaha ku soo cusboonaaday lagu leeyahay dhulka waxaa bixiyey ama waxaa markhaati ka ahaa ama waxaa goobjoog ka ahaa nabadoono. nabadoon shaqadiisu waa naqaanaa, wuxuu qabto iyo wuxuu sameeyo iyo waxa waajibaad uu leeyahay muwaadiniinta oo Baraawe ama meel kasta waa la wada og yahay. laakiin maana xeedaabkiisa ama waajibaadkiisa inuu ka baxo waajibaad kale u galo wax fiican maaha. nabadoonka laftirkiisa sumcadiisa iyo sharaftiisa uma fiicno. dhulkan oo Baraawe xoogiisa waxa iska leh dawladana bixinayso. qofkay siisana shuruudaa loo siiyaa. qof kastoo dhul la siinaayana wuxuu u maraa
habraac wuxuu ku qabanayo wuxuu ku qaban dadka maxay u turayaan maxay u anfacad u leedahay kulli waa in la isweydiiyo dawladdu way ka fikiraysaa marka dhulkan idinka iska leh si loogu talgal in loogu nafciya wanaagsan Aways Muumin Xasan Aways okay warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Shabeellaha Hoose